السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن idinka daawanaysan waa Suldaan Media Pro barta play YouTube-ka. Haddii aan idinka mid ahayn waxaan ka codsanayaa inaad hadda igu soo biirto videogan ay share gareyso. Wax weeyaan in badan baan YouTube-ka ka maqnaa mawduucyo noocaas oo fara badan, laakiin maanta waxaan idin wadaa film yaro mataqaanaa reaction aan ugu talagalay bal dhalinyaro reer Hargeysa sida ay Hargeysa mataqaanaa ugu nool yihiin. Videogan markaa wuxuu khuseeyaa ama mataqaanaa aan reaction-kan uga soo qaatay waxa sida quruxda badan leh $10 bay sarifanayaan. $10 wuxuu u gooyo magaalada Hargeysa gudaheeda ay runtii isticmaalayaan. idinka hor dhici maayo videoga aan wada daawano. waxaan malay mango la radqay tahay san malaynaya. السلام عليكم يوتيوب channel ka daawana sawaaqis qaysar ku soo dhawaada dilaanay maanta maalin cusub muuqaal cusub halkan imika ku suganay waa ninkan waa qays yare aba mataqaanaa qays caseer sad kulbo taqaanaa waxa weeyaan $10 waxa lagu sarrifaa 840 waa ka $10 bay sarifteen 840 waxa noqonaya 280 oo lacagta Soomaaliland insha Allah muuqaalkan haduu soo gaadhahay waxaan idin leenahay subscribe soo kale muuqaalka waxa lagu helay muuqaalkan bari horaan duubnay isagoo kale halkan ay hor taagan yihiin ama ay joogaan xaaladda darkiisa waa centerka magaalada Hargeysa. halkan yani lama sheegan ka anigu waxa igu dambeysay iyadoo iska suuq caadi ah magarad hadda maadaama Hargeysa qayb kamid ah gubatay wax weeyaan qayb tan ay dadkii oo dhan xitaa kuwii bakhaarada lahaa iyo xidhan halkan bay inta badan ay fadhiyaan lama kala garanayo. bal $10 wuxuu jiro ayaan eegi doonaa. habsan baan hadii habeen lagu noqoto macnaheedu wixii koobaad baan iibsanayna waxa weeye waa xabxabkii iyo tufaax iyo lilmacaanti waxay u tageen nin xabxabla oo xabxabinaya ama liin saytuun waxaas dhan waa khudaarta inta badan ee wadanka ka baxda alaabtaas. nafta qaraxa waan yara qoynaya xabxab nafta qaraxa khayr qoynaya liini baa daja jeex liina waa iska kaftameen liinta jeex lama iibiyaan malaya xababka kuley in la iibiyaa laga yaaba xababka. sadarkaysan meheradii ninka baa la wareegay inankii meherada lahaa. okay markana waxay gacanta ku hayaan waa xasiid kuley reer galbeed ku yaqaanaan xasiida. baashan waa kaalada reer Gabiley baashan sharaf dadna khasaaray horta baashan mooyaa yar kulshay way kula hadda waxay u yimaadeen adarksan wiil yar oo wuxuu iibinayaa quraac iyo sambuuse iyo magarash mid baa intii inta isku duubay afkii way mise xabad way mise saaxib kan iyo kan waa isku laba ku yeeshay ma sha Allah oo qiimo jaban walaa 3 500 la qaadan sax wax weeyaan sambuuse iyo mataqaanaa wax la isku daray hadda bal meesha ay marayaan waxaan malaynayaa markaasoo kale waxaan ku dheereer markaa imaada markaad aragto shaah iyo mataqaanaa alaabtaas qamqamta عيل بيغفته وراش كله واحد يا طبعا انتو هذا كتوريا هرجيسة كبيرة جاي شاه شو عبته صنعت مش عن الشاه قلنا لقى ما هلا تصدقتين حالة دي دوسكا حالة شحشحن قالي ويان أنا وبرجي يمكن بيسي كوب كوحة كرشلنا وكلونكي واحد سينيا 10,000 oo shilin xabad yar
qaali wallah lacag haddaad taabato waxa weeye waa la 10 kun oo shilin Soomaaliland mise noqon kartaa talo hal doolar miya I don't know waxnaas badda isku taginde halkan haddana waxay yimaadeen meesha mataqaanaa loogu talagalay waa cuntadii mataqaanaa wadanigii halkaas waa digir maxsaro sheekada ayaa dhamaysana funny runtii halkaasaan ku joojinaynaa wax badan saas may hadhin bal yar fiirso adigoo dhalinyaraha waqti haysta waddankaagii ku nool يعني imagine nolol intee leeg bad farxad intee leeg dareemi kartaa waxaad ka codsanayaa halkan aad iga daawanaysaa Suldaan Media Pro inaad subscribe gareysaan share gareysaan bila aleeg in badan baa social media ka maqnaa walibana gaar ahaan qaybtan YouTube-ka haddan dib ugu soo noqday haddana waxaad ka codsanayaa inaad martii aan taagnaa dibi gaarsiisaan idinkan gacantiina ku xidhanahay يعني idinka mataqaana wax alaali waxa jeceshay gaarsiin kara runtii waa idin jecelahay markastana wallahi waa idin jecelahay wax kasto aad jeceshiin waa idin la jecelahay dhamaantiin waxa idin leeyahay runtii farxad ku noolaada subscribe-ka marna waxa iga iloobina waa idin salaamaya